maanta sawaayadana qada ka dhiganaynaa iyada maanta qada laga dhiganaya marka biyahaas lagu cabaaya maanta marka jikadan tagayna waan isla sameeynayna ku soo dhawaada iyo jikada sababto tahay waa maanta qadadeedu waa sawaayada marka ku soo dhawaada qadada iyo biyahan kulul kana biyo kulul baa lagu dhigay si lagu cabayo marka la socod wanaagsan jikadan tagayna hadda la isku daraya iyo maxaa la yiraahdaa burki sababtu tahay وين يا سفي عن ليسكو وحشة ما هاني تي لقدر أيام حالة هاي تي لقدر أيام كنت أما بيت كأما وحيابها كاري أما الخميرين أي وحويتي صومالي بيور عصبو يوم حالة هاي عصبو يو حلقدر أي بيو كليه يا cusbo iyo biyo kaliya baa lagu daray marka waa sidii caadiga asli Soomaali ay u xashan jirtay burka baa loo xashayaa tan marka balse ay ku soo baxdo baan arkaynaa waan isku soo laabanaynaa markaan si fiican iskugu soo xasho soo baxday waa inay saas mal dhaqo noqotaa ya دقيقة iyo 2 iyo 3 toona kuma jircida bahashaani wayna sas noqota saas u kala yaacaysa sababta ay tahay hadii kale hadhowta lugtay taagaysa haday lugta ka taagtana waa ku dhamaata marka dadka qaarkood uma yaqaanaan bahashan waxay nooga xumaatay lugtay naga taagtay way qaylisay markii saxankii lagu rida qarjajajajac asaas loo riixay haddaadan rabin marka inay lugta ka taagto bahashaani si waqti xash aad u xash maxay ahaaytay markay saas oo jircdo oo fara u kala raacraacdo kadib maxaa la yiraahdaa fidi ama lawax laakiin haddaad markiiba intaad balag ka siiso ama aad ukun ku darto ama aad fixiso ku darto oo qaabkii keega oo la isticmaasho kuma noqonayso kimis ama sabaayad hadba qofba soo yaqaano laakiin haddaad rabto inay sabaayad biyuura ku noqoto ama kimis biyuura waa inaad maxaa la yiraahdaa aad waqti siisa oo aad xashta oo aad ugu yaraan 20 daqiiqo xashta ka warkeen marka soo aragto commentiga noogu soo reeb sababtu tahay muhiimadda dhan oo aad uga dan leedahay inay sawaayad qurux badan ama jileeca ku noqoto way inaad xashtaa si kale kuugu noqon mayso saliidaad ku badiso kuugu noqon mayso dabkaad ku casayso kuugu noqon mayso ama ku guduudiso waxay kuugu noqonaysaa inaad xashto oo waqti siiso hadda waan soo fidinayaa ama waa soo la waxaya qofka soo yaqaano kadib aan isku soo laabanayna wala kala bixbixiyay sidaan aan ku dhahay miiskii inuu hal mar baan diyaariyaa marka hal mar baan diyaarinayaa sababtu tahay marba inaan xabad u soo laabto haddana diyaariyo baan diidayaa marka waan idin tusaaya labada xabbe u horeysa baan idin tusaaya hadda xabadaanan hadda kala bixinaya marka arka hana malaynaya sida loo kala bixiyo qof walba uu garanaya laakiin waxa kaliya dadka ay ka halaabaysa ka qaldani waxa weeye inay maxaa la yiraahdaa ay xashka ay wax yar sameeyaan
kadib markaasay ka halaabaysaa. laakiin haddii aanay xashka aanay kaga halaabayn kama halaabi karto, sababtu tahay way u toosaysaa, xashka way ku toostaa. si caadiya bay kuugu toosaysaa haddaad samayso inaad maxay ahayto aad u xashto si fiican, u kala bixiso si fiican, wayna kuu jilcaysaa, wayna kuu hagaagaysaa. laakiin kula finda cinda geel waa xashka, hala ogaado sidaas. markaa rabtaan inaad dubataan, xashka ka badiya ka badiya ka badiya ka badiya. kadibtana iyada maxaa la yidhaahaayey idin maxay hayto hagaagaysa. waayo sababtu tahay waa inaad maxay hayto wax kasta isu dheeli tirtaa. marka labada xabe u horeeyaan idin tusaaya. hadda daawahan dabka soo saaraya, waan isu soo laabanayna, xabadaanan qaadaya. waxaan idin tusayaa laba saddexda xabe ugu horeysa, si maxaa la yidhaahaayey aa u aragtaan ayaan idin tusayaa. maxay ahaytoy waa inaanay kaa qalaalin, aad dabooshaa. maasha allah, saasay ku soo baxday. laba mar baad rogaysaa intaanay maxay ahaytay aadan saliidda ku shubin, sababtu tahay way kuu qorxoonaanaysaa. marka ugu dambaysa ee aad rogto mar labaadka ayaad saliidda marinaysaa, haddii ilaahay qadaray saas noqoto. waa kaa markaasaad saliideynaysaa, saasaad u saliideynaysaa, kuna badin maysid, waad ku yaryaraynaysaa. inaad mara ku dubato isku day haddii ilaahay qadaro, sababtu tahay saliidda waxama qurxiso, waxaad qurxiso gacantaada. inaad maxay ahaytay gacantaada aad ku qurxsato, ku dubto, ku xashto. laakiin saliid badani ma qurxinayso haddii ilaahay qadaro. tan waa tii buyuurka ahayd oo soomaalidu duban jirtay. soomaalideenii hore aan ka baranay miyiga kasoo maxay hatay ka timi, sababta tahay markay magaalo timi wax walba waa lagu sameeyey. ukun baa lagu daray, faxisaa lagu daray, waa marba markii kasii dambeey way halaabtay. laakiin tan waa tii buyuurka ahayd, asligeenii halkay ka timi weeyaan tani. yaa waa asligeeni meesha ay sabaayad ka timi weeye tani. waa biyo iyo milix ama cusbo hadba kaad u taqaano, uunbaa maxay ahaytoy lagu daray. wax alla iyo wax kale oo lagu daray male. biyuur saasay ku tahay, saasay ku soo baxaysaa. qurux iyo qurux maxaa la yidhaahaaye maasha allah tabaarakallah. waay laba mar markaad gadiday ku hagaagaysaa. haddaad rabto inaad ka barato sabaayadda noocan loo dubo oo aan ukun iyo wax kala toona lagu darin, saas u dubta. la socda qaybta dambe, waan soo dhammaystirayaa. qaybta dambe la socda markaa soo dhammaystiro haddii ilaahay qadaro. suugadan markaan isku soo dardaraya idinmaan tusin maadaabaan ku mashquulsanaa sabaayadda. laakiin shalay baan channelka soo geliyey
iyadoo canjeelo lagu cunaayo oo kaale iska araga jananka dib u raac ka soo raadi ya halkaa ka daawo sida la iskugu dardaray iyo sida loo kariyay shalay baan tusay dadka walaalahayna si uga faa'iideystaan waa wax aad u fudud waa wax borotiin leh canjeelo baan shalay ku sameynay maantana sabaayad marka sida la iskugu soo dardaray janankay ku jirtaa daba raaca soo hela insha Allah bidnillaahi kariim waa cunto borotiin leh sabaayad baan diideyn keligeed xitaa intaad baaquli ku ridato cun oo qaado jamta kaga dhig sidaad camboolada u cunto ama digirta qaado ku cun ka warkeen waa sooya iyo digirteeni bes iyo qudaar basal iyo waxa soo lagu dardariyo xawaashiga marba waxaad haysataa isticmaal wax badan uma baahnid maadaama kamsar caleen haysato marka iyo toon marka saasaanan idin tusin isku soo dardarkeedii waanan degdegsanaa waa ogtin sabaayadu waa hawl marka sabaayada hawsheedii baan ku dhex jiray saasaanan idin tusin maadaama shalay jananka galiyay dee maanta shalay way isku xigtaa marka shalay baan galiyay maantana waa tana isla iyadii baa ku jirta anigu hilibka badan ma jecli waxaan isticmaalaa digirahan marka maadaama digirahan isticmaalo dadka walaalaha ay uga faa'iideey baan lahaa waxaad adigu cunto walaalahaaga kala tus si uga faa'iideystaan hawl iyo waqti kaaga bixi maayo saanaad iskugu dartarsan dhag baad ka siinaysaa ee rootigaad ku cuni kartaa canjeelaad ku cuni kartaa sabaayadaad ku cuni kartaa sidaan kuu sheegay qaadaad intaad u qaado jamta kaga dhiibi kartaa ama malgacadaad basaad u taqaano waa taasa marka la socod wanaagsan sabaayadii wax yar baa u dhiman la socda qaybta dambe qadadii waa soo dhamaatay waatana waa la diyaariyay waraaqda waxaan u saaray inay saliidda ka nuugto maadaama ay saliidda maxay haytay saanay ku soo baxday ay saliid leedahay taas saliidda hadda kama muuqato ma ka muuqato saliiddii sababtu tahay waxa ka nuugtay waraaqdaas oo la saaray weel oo adag oo saas ka dhigaya haddii lahay ka dhigo baash saasay soo noqotay waa taasa waxay leekaatay xabad laxooxa ama canjeela baasheeni baa lagu cunayaa tana shaahan waxaan meesha u dhigay waa shaah cagaar ah marka shaaha maadaama ay saliid leedahay meeshaasaad ku shubaysaa inta aad wax cunayso isaguna waa kaas waa ku huura meeshaas kuugu jira waa shaah cagaar ah waa liin iyo maxaa la yiraahdaa liinteena caadiga ahayd liin dhanaantii wadankeena oo lata cagaarka mayta kale iyo shaah cagaar oo la isku daray labadba way fiican yihiin subagga marka maadaama bahashaan cuntay shaaha cagaarkaas aad u samaysanaysaa hadhowta si uu waakaas hadhowta si uu subagii kaaga dhaco wax badan kugu qaadan mayso inuu subagga kaa dhaco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta qadadii saasay inoogu soo dhammaatay aad iyo aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum maanta sawaayadana qada ka dhiganaynaa iyadaa maanta qada laga dhiganayaa marka biyahaasaa lagu cabayaa maanta marka jikadan tagaynaa waan isla sameynaynaa kusoo dhawaada iyo jikada sababtoo tahay waa maanta qadadeedu waa sabaayad ah markaa kusoo dhawaada qadada iyo biyahan kulul kana biyo kulul baa lagu dhigay saasaa lagu cabayaa marka la socod wanaagsan jikadan tagaynaa hadda